dabcan sidee xiriirkiga ku wanaajin karaa khilaafad hadduu yimaado sidee ku xallin karaa sidee soo gudbi karaa caqabadaha xiriirkiga hortaagan way iska fududahay wax basiida waxaad ku kordhin kartaa marka hore waa inaad fahamsantahay qofka dabeecadiisa inaad adiga isfahmi kartaan xiriirkiina marka ugu horeyso waa inuu noqdaa mid ku saleysan ilaa abadiya inaad adiga qofkan mustaqbal fog ka leedahay mustaqbal fog inaad ka leedahay taas waxay sababi kartaa xiriirkiina inuu waaro waxaad ku sii kordhin kartaa xiriirkiina inuu mar walba sii socdo oo yacni kamira dhalisaan oo guur iyo uu noqdo ina qofka mar walba aad adiga la socotid aad la mushaar garaysid arrimo badan inaad la mushaar garaysid arrimo badan ee kamid yihiin qofkan mustaqbalkiisa waxa uu asiga jecel yahay tusaale adiga waxa tahay dhakhtar gabadhanu waa ayadana kuliyad kale baratay ama waxay jeceshahay inay mar walba aado banaanka ee mar walba maxaa lahaayeen wax qabato laakiin adiga ahaan dabeecad waxa qabtaa leedahay inaadan ogolaan gabadha baxbaxada ee shaqeysa ee bulshada social work ka shaqeysa gabadha mar walba haday kaaga sheekayso arinkaas waxaad fahmi kartaa gabadha xiriirkiina inaad halka u gaari karo laakiin hadii aad tahay adiga qof doonaya meesha ayada ee doonayso xiriirkiina uu socon karaa laakiin hadii aad arqalad ku tahay meesha ayada ee rabto adiga aadan rabin xiriirkiina ma sii socon karo sidoo kale waxaad mar walba ku badin kartaa ku adkeyn kartaa xiriirada runta xaqiiqda dhabta ah in la run la isku sheego adigoo faqiir ah hadihin hantiila ah adigoo aqoon leh hadihin aniga professor baan ahay taasi waxay keeni kartaa aamin daro kalsoonidu waa shay qaaliya kalsooni labadiina inay dhaxdiina inay taalo mar walba aad isku kalsoontihiin waa inaad alla ka cabsiga taqwada qof kula doonaya qoyska aad rabto marka aad dhisayso qoyska waa inuu qoys ku saleysan diinta islaamka ubad tayale aad soo saaraysan meesha aad rabto qof kula socod marka aad hesho way fududta xiriirkiina inuu sii waaro guurna aad ku soo gabagabaysan طبعا marka hore wax kasta waxay leeyihiin asbaabtooda marka la ogaado cilaajkoodana waa la heli karaa asbaabta furinka keenta ugu badan oo mujtamaceena ah waxaa ka mid ah inta haday aan soo sheegnay cagsigooda oo midalan xag tadayunka oo dadka isku mid ahayn mid aqoontiisa sareysa iyo mid aqoontiisa hooseyso yani dadkaas mushkilatul jahliga waa gabadha markii la yiraahdo xijaabkaada qaado garbasaar bay qaadanaysa way baxay war maxaa kugu dhacay jilbaabka ma qaadatid maxaa waa xijaabanaya war kan xijaab maana maradan khafiifka maan kan qaado murunka meesha ka bilowday kuma qanacsana malaha aqoonteeda ma fahansan يعني الفروق الفردية واحد هذا جرا قفك إن دراسات لقوا سميه دقالها أو كل حاجة مركي كوكل قدسين قبل ولي بالعقلان هلا بين كسيحة ميت فقيرة مركي جورسيت وسلا كل جوجي أنا ما قرناه تلاجد يقبوج ويحي مكيف كأوبرت مروحة جين كده أعوذ بالله كواس أديك المروحة مركي جورس ولا شيء هذا سوحرت ورجعنا ما إسكر هذه سهاد دوا بنانك إسكسيحة جرت أيضا ولي جد جوري مروحة مسيحة السلا كل شيء نسن مركي يعني وحيالها النوع فرق يقول حياة حق الدين تهنقطه حق أخلاق تهنقطه علم تهنقطه مقالة تهنقطه وحاصلنا إن ماشي كبحان وحس كله إنه يهين سن ولا شاذ وارته ما أنت أسكلية وح بدن أياجر مركو حاسد دل الصحة حق الدين تنا لا كلمة استوح بدن ولا صحة